السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kusoo dhawaada barnaamijkeeni isbuuclaha ahaa aan kaga hadli jirnay warbixinada wixii dhacay caalamka isbuucaas wixii ugu xasaasisanaa ama wixii ugu la yaabka badnaa. Okay, qaybta koowaad waxaa ka hadli doonaa nin baradho darteeda loo xiray. Ninkan waxaa la sheegay inuu baradho shiilan ka dalbaday maqaayadda caanka ah ee McDonald. Maamulka iyo asaga ayaa la sheegay in uu khilaaf dhexmaray kadib ninkii uu xanaaqay ninkii baradhada dalbaday ayaa xanaaqay sababta isku dagaaleenna waxaa la sheegaa inay tahay in baradho oo kuleel ahayn loo soo dhiibay oo si fiican u shiilneen. Marka ninkii maadaama asaga uu dalbaday maadaama wadamada sharci iska jiraan waxay rabaan ay sameeyaan marka waxay sameeyeen ninkii wuxuu wacday booliska ayaa imaaday kadib ninkii asagoo arintiisa loo fiirinayo magacaaga sheeg ayaa la magaciisa wuxuu ku tilmaamay inuu yahay Antoine Sims ayaa lahaa. Marka uu magaciisa sheegay waxaa soo baxdayba ileen system ay jiro caalamkaas in ninkan xogag oo lagu haayo kiisas kale in lagu haayaba oo dil iyo wax la mid ah ay yihiin. Ninkiina sidaas darteed ayaa loo xiray. Ciwaanka lagu soo qoray majalladaha Mareykanka ayaa waxay ahaayeen nin baradho darteeda loo xiray. Okay, dhacdo la yaab leh oo ka dhacday dalka India ayaa sheegayso in gabar ay isku beertay AIDS. Waxa isku beertay AIDS gabadhan ayaa la sheegay inay jirto 15 sano taas isku dayday in ay isku durto dhiigga saaxiibkeeda kaasoo AIDS qabay. Sababta ugu weyn ayaa waxay ahayd in ay rabtay gabadhan inay muujiso jacaylka u qabto saaxiibkeeda. Majalladaha ugu weyn wadanka India ayaa soo qaateen isbuucan majalladaha qaar waxay qorayaan inay isku dayday gabadhan in ay la baxsato wiilka marar badan laakiinse waalidkeeda ayaa ka hor istaagi jiray oo waalidkeeda ayaa u diidi jiray ayaa la leeyahay. Booliska dalka India ayaa xiray wiilka si kiiska loo xaqiijiyo. qaybta kale hadaa fiirin isbuucan majalladaha ugu waaweyn dalka Italy ayaa waxaa lagu soo qoraa sheeko ciwaankeeda uu yahay isoo bixiya waa idin barya. Halkan waxaa ku dhawaaqay nin isku dayay inuu xado bangi isagoo soo maray dhulka hoostiisa. Ciidanka dibdemiska ayaa soo badbaadiyay nin u dhashay Italy kaasoo ku dumay god. Waxaa la sheegay ku dhawaad 8 saacadood inuu ku jiray godkaas isaga iyo laba kale ayaa kiiskan la sheegay inay ku lug leeyihiin kuwaas isku dayay inay xadaan bangi ku yaala dalka Italy. Waxay qorsheynayeen ayaa lagu dhahay saddexdan nin in dhacaan bangi ku yaala Italy. Arinkaas waxaa qoray majalladaha Italy iyagoo u bixiyay magaca tuugada godka ee loo bixiyay. Sidee lagu dareemay waay marka dadkan waxaa lagu dareemay horta waxaa la sheegay ku dhawaad sanad inay godka soo qodayeen. Godkaasna wuxuu ku aadanaa dukaan faaruq ah oo la rabay ijaar loo rabay. dukaanka faaruq ijaarka loo rabay markay soo qodaan hoostiisa ee kasoo baxaan kadib bangiga ku dhagan sidaas inay ku galeen waa sheekadii aflaanta iyo wixii la mid ahaa. Marka waxaa lagu dareemay ayaa la leeyahay maalmaha fasaxa holiday-ga ee u yaqaanaan oo sabti iyo xadda ah ayaa waxaa la dareemay asaga godka ayuu ku jiray iska dhaaf uu soo qodayay. labada nin ee lagu tuhmayay kiiska sidoo kale ayaa la sheegay in ay taagnaayeen bangiga hortiisa labada maalin fasax ahayd. Waa niman iska taagan meesha ay ka dhaqaaqayeen oo isku boojeenayo maalinka koowaad shaki ayaa galay dadka maalinka labaadna booliska ayaa la ogeysiiyey sidii ayaana lagu soo qabtay. mowduuca ugu dambeeya oo ah mowduuca ugu xasaasisan aan ka hadli doona ayaa wuxuu yahay xaflad aroos oo aad u weyn oo ka dhacday dalka India. Dadka ayaa soo xaadiray ubaxyo ayaa la keenay waana la alalaasay. halahaas dhan ma ahan ayaa lagu leeyahay arooska cabdi iyo caasho ee waa arooska laba rake. waa laba rake rakaha aad taqaaniin oo af carabiga difdac lagu dhaho waa laba rake. labadaas rake ayaa la sheegay in isbuucan isguursadeen. xafladaasna ay ka dhacday dalka India magaalada Assam ee dalka India. dadka degan ayaa sanad kasta markay roob la'aan dhacdo sidaas sameeyaan. magaaladaas waxay xoogga saartaa beeraha maadaama roob la'aan ay dhacdo marka waxay qiil uga dhigaan in haddii roob la'aan ay dhacdo ay isku guuriyaan laba rake uu roob u imaanayo. magaalada Assam ayaa lahaa waxay ku taalaa dalka
India waa magaaladii dhacdadeeda hadda aan soo sheegnay ee gabadhii AIDS isku soo durtay. waa isla magaaladaas, waa magaalo mucjiso ayada dhan. Okay, waxay sheegaan guurka rakaha inuu process badan maro. kow waxaa u ah kalarka gaduudka ah in madaxa la isku mariyo. kalarka gaduudka aad taqaaniin oo hindida markay isguursanayaan wixii musalsal fiirsaday wixii film fiirsaday oo madaxa la isku mariyo. Stepka labaad ayaa waxay dhaheen in ubaxyo qoorta loo geliyo. qoor ma lahan be rakaha, marka ayaga yaqaanaan waxaas iyo wixii la mid ah. marka in rakaha qoorta loo geliyo. Stepka saddexaad ayaa waxay sheegeen la marinayo in webiga in la geeyo oo la qaado oo webiga la geeyo. qofaa intaas dhan wado markii la isku guurinayo xitaa qofaa gacanta ku qabanayo, sababtoo ah weeba fakanayaanba rakamaha meel fadhiiso waa ku guurina ka yeelayo. Stepka ugu dambeeya ayaa waxay tahay in webiga markii la geeyo webiga lagu sii daayo. webiga ku sii daynayaan way fasaxayaan. Arintaas ayaa waxay ku tilmaameen inay tahay honeymoon ama shahru casal waxa Carabi lagu dhaho. Soomaalida ma isfahmo yaqaanaan, laakiin waxa Soomaali lagu dhahaa bisha malabka. marka alxamdulillah ilaahaygi islaam naga dhigay ayaa mahadle. intaas ayaa kusoo gabagabeynayna asxaabi barnaamijkeena. barnaamijka waxaan idiin soo diyaarinaya anigoo Cabdikariin Axmed Xaaji. waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe channelka noo saartiin, gambaleelkana click aan ugu siisiin. ana mahadsantihiin.